kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 jeer idiin soo gudbinno qaybta 23aad ee barnaamijkeena hayaan waxaan toddobaadkan mar kale uga hadli doonaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyadoo aan si gaar ah barnaamijkeena ugu eegi doono guulaha ugu dambeeyay ee ay ku talaabsadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gacan ka helaya shacabka Soomaaliyeed. goordhow dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa warar ku saabsan howlgallo cirka iyo dhulka ah oo ciidamada daraawiishta Galmudug iyo kuwa qaranku ay ku baagsadeen baartilmaameedyo ay ku sugnaayeen kooxaha qawaarijta ah ee al-shabaab. hase yeeshee dhegaystayaal aan ugu horreyn barnaamijkeena ku bilowno khudbad uu madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u jeediyey xubnaha ciidanka guutada Cali bin Abi Talib kadib kormeer howleed oo madaxweynuhu ku tagay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. madaxweyne xasan ayaa ciidanka ku bogaadiyey guulaha waaweyn ee ay ka soo hoyeen dagaalka lagula jiro kooxda qawaarijta ah ee al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asoo kaligiis ah oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaan dagaal soo bilownay muddo sanad ka hor ah. dagaalkaas uu soo bilaabay maalintaas waa la qosqoslay dad badan waxay lahaayeen hadda iska soo noqon doonaan ma iga meel tagayo oo dadkanaga waxa loo sheegay war waa idinka soo tagayaan hadda idinka soo tagayaane muxuu ahay waxba yaanay muxuu ahay idin waxayna annagoo intaan ka tira yar idinku aadan qayb ka ahayn dhalinyaro kale oo idin la walaalihiin oo meesha idinka soo horeysay ay joogaan tiradoodu aad u yar tahay qalabka ay haystaan oo aad u yar yahay ayaa amisoon oo yaabanoo lahaye meeshaana idin joogeenahay socda ayay halkaa ka soo dhaqaaqeen waa yimaadeen barigaas amison annagu kumaanaan qanci karin Soomaaliyeedna waa dagaalan u soconay nala gala oo waxay noo arkayeen dad aan dagaalku dhab ka ahayn oo aan meelna u soconin laakiin hadda maanta way fahmeen in dagaalku dhab naga yahay annaan wax qabsan karno annagu waqti ma qabno dalku waa dalkeenni cid aan u fadhina meel oo aan sugayno oo dawladdiyo xoog leh wax walba u dhameystiran yihiin oo kartoon ku jirto ayadoo wada baaka ku jirto noo keenaysaa ma jirin gacnaheenaan shalay dawladda ku duminay aabbayaashiin aniga ilaa cimrigiisii inaan waagaas joogo welina noolahay gacmahanaga qof nagu kaalmaysay dawlad duminta ma jirin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dawlad dhisidana qof nagu kaalmay karto waa la helaa laakiin qof noo dhisi karto dawladda heli maayo shalay dawladda annagaa duminay maantana annagaa dhisayno dawlad dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta dalka dadka diinta iyo dawladda afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay diintii waad aragteen wax kale iska daayay dugsi quraanadii xataa waa xireen meelaha ay muddo dheer joogeen dugsi quraankii xataa waa xireen wax kale iyo barasho kale iyo aqoon kale iyo iska dhaaf nolosha kale oo dadkeenna ku noolaayeen muddadii dheereedna waad arkayseen waanaad ogeedeen waad soo aragteen meelaha deegaanada waa tagteen horumarka ka jiro wax la'aanta maxaan ku idhahdaa 1000 sano ka hor sidii dadkeennu ay baadiyaha ugu noolaa jireen maantana ugu nool yihiin qarniga 12aad waxaana u sababa waa nimankaas cadowga ah ee maxaan ku idhahdaa ummadda intaas haysta dhalinyaro waxaan rabnaa dalkeenna iyo dadkeenna inaan meeshaas ka keenno idinku duruufihii aad ku soo korteen ood ku soo barbaarteen oo aad ku noolaateen ood wax ku barateen carruurta aad dhalaysaan ka duwan duruuftaas duruuf ka duwan inay ku noolaato oo ay ku barbaarto oo ay wax ku barataan rabnaa cabsidu waxba noo tari mayso cabsidu waxyaabaha ugu horreeya fashilka keenay tahay qofku hadduu cabsado ma aha xabadda keliya lagama cabsadee dadaa go'aan inay gaaraan cabsanayo dadaa meel inay tagaan ka cabsanayo dadaa maxaan ku idhahdaa inay runta sheegaan ka cabsanayo dadaa qof walba cabsi intaba aad kelmadda aad aaminsan tahay inay sax tahay aad ku taagan tahay cabsidu waxba ma kuuma celinayso waa ku fashilinayle waa ku curyaaminay waxtarkaagay hoos u dhigay huuhaa iyo been iyo maxaan ku idhahdaa waxaan macno lahayn inta ciidamada lagu soo dhex daadiyo waan ogahay inay kuwa xunxun oo Soomaali ah oo ka arka inay fashilku inuu ayagu guul yahay
ونعسي إلينا فشل كقف صومالي وأديو كركيد صارن أما نيويورك هجوجو أما محن كورا محاس هجوجي مجرته قف صومالي أو ما أنت شباب إنه قف فشل ما أما شباب جوريستا مصلحتكم قبل مرة نعسني ما واهل كده قرشوا واهل كيس أنا خلا قرن بوحي صحدا يوحي قلت كاه ما نجاب واهل كيس لكن ماشي شباب قول درشة قول شباب ما أنت قف أي مصلحات أطاي أو كم عاش يا هي مجرو لكن حقين لو نقضاه عاد نقطتي ده عن وضع نقولنا دمانتين حمر سقوط تجنه مكو أمان هلينا مكو نورانينا نولا شكلي هي بدأ شرفته هدي لقى صوت تجا حتى أمان عن كوكل صورنا هاي أو عن كل ذي كرنون لسه حكرنا مكو هاي السنة حمر هدان سقوط تجنه دمانتين جوابت وما يكون هاي السنة هرنا جمانا هاي السنة هذا نكون هاي السنة كمانا هيلين هذا ما أنت حمر dadku waa amaantamaan oo waa fiican tahay xamar oo sidii hore waa dhaantahay waxay ku dhaanta waa adinka xamar waxay sidii hore ku dhaanta waa adinka laana nimanka xamar qarxida waa weyn oo qarxi soobo kala keeni jiray maanta ma keeni karaan koo way horta waa mashquulsan yihiin oo adinkaaba mashquuliyo baqay ku jiraan waa niman baqasho ku jiro oo cararaya firaaqo u meelaan waqtina uma haystaan labo kuwa adinka oo kala aha u taagan albaabada xamar laga soo galay banaankeedo dhan oo hor taagan oo maxaa fashilinayo oo meesha ku celinayo oo aanay soo mari karin marka dhalinyaro waxaan rabaa maanta waa maalin naftaada adiga iyo nafta ninka xamar jooga daarta dheer maxaan ku apartmentiga inta kireystay ku dhex jira ee ku nool isku mid waay meeqaa naga dhimato oo aan dagaal ku dhiman maalin walba inta dagaalka nooga dhimato waxaa ka badan inta caadi nooga dhimataa ka badan haddii lasoo tiro koobo caadi malaria dishay kansaraa ku dhacay maxaan ku ihahdaa beerkoo beelay maxaan ku ihahdaa stroga ku dhacay oo lug iyo gacanaa dhacday kabacdina waa dhintay saarun shilow galay waxaa la leeyahay oo dhan ayaa boqolkiiba boqol ka badan inta forontiga ayagoo dagaalamaya ku dhimanaysa ama ku dhaawacmaysa waxaan rabaa dhalinyaro waa guulaysanay meesha aan joognay iyo meeshii laga soo bilaabo bal eeg inta u dhaxayso beledweyne iyo inta ama muxuu ahaa meesha la yidhaha bacda oo u dhaxaysa beledweyne iyo matabaan u dhaxaysa laga soo bilaabo ilaa meeshaan wiilal saaxiibadiina walaalihiina khayrkiina ayaa intaas soo waday oo aan ilaahay aan haysanin maanta qalabkaan aad haysataan bacda ninkii lug ka soo bilaabay bacda tuulada ninkii lug ka soo bilaabay aadan yabaan oo ku yimid oo ku tegey asoo qalabka uu sitoo dhan weliba garabka ku sita baabuur ay jidka mar ka soo qafaashaan biyaha iyo waxa ay ku doonto soo saarta laakiin nimanka gorgorleeyo aad aragteen qoryaha waaweyn oo ay wadaan culayska badan garabka ayaga ka mid ahay garabka ayagoo u saaran yahay meesha inta ka soo lugayana meesha ku yimaadeen maanta intii hore waa dhaana waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysano maalintaas maanaan haysan qalabkan maanta aan haysano cusub maanaan haysan aad iyo aad ayaa duruufeen laakiin maxaan haysanay niyadaan haynay niyad maantana weli niyaddii waa haynaa maanaan niyad jebin cadowga uhiilintiisu dimuqraadiyad ma gasho marka dhalinyaro guul iyo khayr aan idiin rajaynayaa meel kastoo aad joogtaan sidaanoo kale aan idiin soo daba kaceenna xafiisyo eer ku dhishina intaan iska fariisanno orda adika dagaalka aada idinma lihin waa idin daba soconnaa maalin walba inta la idiin sheego kalaa la ii sheegaa baabuur qaraxaa jidka kugu jiro waa lagu sumaynaa helicopterka asaaran tahayaa muxuu ahay zuuyaa loo diyaariyo waa la soo ridaa ha isku bixin ha ka dhicin ha yeelin maalin walba intaasaa fariintii ugu dambayso xalal iisoo dira haddaad aragto waad yaabaysaa hadda anigana intaa idiin sheegay waa iga dhab shabaab inaanu idili karin inaan aaminsanahay inta qadartaydii alla maalinta ii qoro inaan dhintay ay wax ka dhiman yihiin leanna ilaahay subxaanahu wa tacaala aydihiis qur-aanka ku yidhi soo maha dhimashadaada saacadna lama soo hormarinaayo saacadna dib loo dhigi maayo eeg ilaahaa yidhi saacadna lasoo hormarin maayo dhimashadaada saacadna dib loo dhigi maayo maalintii laguu qoray inaad dhimato maalintaasaad dhimane xaaladaan doonto ku sugnaa
wiilashii naga dhintay shuhado waaye waa kuwa shahiidiinta ah oo rasmiga ah oo la hubo oo ilaahay aayadihiisa qur-aanka ku caddeeye waaye kuwa naga soo horjeedana ilaaha caddeeyey inay yihiin kuwa aanan janno iyo agteed meelay ku taalla aan tegayn alla agtiisana aan naxariis ku haysan khawaarij markii la yidhaha khawaarij khaarij can addiin yaa waa maxay diintow ka baxay waa diinta bannaankeeda diintow bannaanka ka joogaa waaye khawaarij macnaheeda dhallinyaro adinkaa waddada saxdaa ku taagan adikaa ilaahay waddadiisii ku taagan adikaa tii soomaalinimada ku taagan adikaa cirdigiinna iyo sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo kuwa dadkiinna in kor loo qaado adikaa ku taagan waxyaabihii in loo dhinto oo loo dagaalamo oo ilaahay jideeyey oo yidhi waa loo dagaalami karaa waana loo dhimo karaa yay ka mid tahay sharaftaada iyo karaamadaada diintaada dadkaaga cirdigaaga ilmahaaga waalidkaaga hooyada dadkaaga waxaa loo dhintay ka mid yihiin oo diintuna ay ogoshahay ilaahayna uu dadka farayba dayuusnimo ilaahay dadka ma farin dadka dhiiranaan ay ku dhiiran yihiin waxa saxda waxa aad ku taagan tihiin boqolkiiba boqol wixii saxda ahay waa wixii saxda ahay oo alla raalli ka ahay annaguna aan raalli dowladdiinuna shacabka soomaaliyeedna uu raalli ka ahay maanta meel kasta taagan yahay guul iyo khayr baan idiin rajaynayaa ducada iyo alla bariga ummadda soomaaliyeed oo dhammaad haysatiin taasaana wax weyn noogu wada fadhida dhammaan dadka soomaaliyeeda idin duceeya masaajiddaa salaada looga qunuudaa in ilaahay idin guuleeyo sujuuddaa dadku mugay sujuudaana in badanoo dadkeenna ka mida idinkugu duceeyaan ee ilaahay u baryaan inaad guulaysataan waana guulaysanaysaan li'anna waxaa ku taagantihiin waddadii saxdeed guul iyo khayraan idiin rajaynaa insha allahu meeshaan meel ka sii xaggayso gadaalo hadda aan cadowga ku sheegayn inuu joogo inaan mar kale iyo mar kale ku kulanno oo aan isku aragno ayaan rajaynaa haddii alla yidhaah madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo khudbad u jeedinayey cutubyo ka tirsan guutada cali bin abidaalib ee ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan markana dhegaystayaal aan u gudubno howlgallo ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ka fuliyeen deegaano hoos yimaada gobollada mudug iyo galgaduud ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey dhulka miyiga ah ee u dhexeeya qaycad iyo shabeelow ee koonfurta gobolka mudug sida ay sheegtay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona goobaha uu howlgalku ka dhacay ayaa ahaa dhulka khawaarijtu ku dhuumaalaysan jirtay halkaas oo ay sidoo kale ku dhibaateyn jireen dadka shacabka ah ciidamada qaranka soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay howlgallo ay qaadeen ku burburiyeen kooxo khawaarij ah kuwaas oo ku sugnaan laba deegaan oo lagu kala magacaabo xiintubaal iyo ceel caliweyd oo ku kala yaala koonfur bari gobolka galguduud ilaa iyo 43 ka tirsan khawaarijta ayaa lagu dilay howlgalka waxaana lagu burburiyey 3 gaari oo ay khawaarijtu wateen wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona waxaa kaloo intaas ku dartay in khawaarijta al-shabaab halkaasi lagu laayay ay ahaayeen maleeshiyaad halkaasi isku urursanayay kuwaas oo ka kala yimid goobo kala duwan oo horey loogu weeraray khawaarijta welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 jeer idiin soo gudbinno markana dhegaystayaal aan u gudubno waraysi aanu la yeelanay axmed cabdi haadi oo ah agaasimaha Somali Civic House waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal inuu nooga warramo muhiimadda weyn ee ay leedahay in al-shabaab laga xoreeyo deegaanada ay weli ku harsan yihiin ee dalka Soomaaliya aad u baasan tahay saad la socoto Soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa soo haysay markii sano ugu dambeeyay dhibka ugu weyn hadda ku jira Soomaaliya waa argagixisada oo saa la socoto Soomaaliya dowlad la'aanteed ka faa'iideysatay oo waxa loo yaqaan fahamka siyaasiga dalka ka dhacay ka faa'iideysatay dhibaato weyn u geysatay ummadda Soomaaliyeed kaliya dadku waxay u jeedaan qaraxyada iyo dadka lacagta ay ka qaadeen laakiin jiilal badan oo Soomaaliyeed ayay khasaariyeen oo waxbarashadii u diideen adduunka kale iyo aragtidiisa iyo ay u diideen marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidii loo doortay wuxuu May baa la doortay wuxuu August dagaal ku bilaabay nimankaas wax fiican baa uga qabsamay galmudug iyo hirshabeelle qayb badan ay ku xoreeyay marka dagaalka al-shabaab dowladdu kula jirto waxay u kala qaybisay laba wejiga koowaad wuxuu ahaa in galmudug iyo hirshabeelle laga soo xoreeyo argixisada wejiga labaadna wuxuu ahaa in oo koonfur galbeed iyo
iyo Jubbaland la aado waana afarta maamul goboleed ay kaga sugnaayeen maxaa la yidhahdaa Soomaaliya ay saldhigteen sababta socota Puntland iyo Somaliland hore ayay soo xirayeen iyo qaybo badan oo kamid ah dadka ay galmudug degan marka wejiga koobaad qaybtiisa labaad ayuu madaxweynuhu uu bilaabay ama dowladda ay bilowday waxa weeyaan in la dhammaystirana waxay muhiim u tahay dowlad dhiska Soomaaliya keliya ma aha wax Soomaaliya keliya ku saabsan maahana waa phenomenon international ama waa wax caalami ah adduunka dhan wadamada dariska saa la socota adduunka kale maxaa yeelay lacagta Soomaaliya laga qaado ama dowladda Soomaaliya laga soo diro oo qaraxa lagu sameeyo fikirka lagu sameeyo waxaa loo dhoofin karaa dalal shay oo kale loo dhoofin karaa marka cilad weyn adduunka haystay Soomaaliya wuxuu tahay oo saldhig u noqotay marka waana muhiim bay u tahay adduunka dhan muhiim u tahay Soomaaliya muhiim u tahay gobolladan ay si muhiim ah ugu sii tahay maxaa yeelay jiilal badan ah meesha laga badbaadiyo oo maaragtay noloshii waxbarashadii aragtidii nolosha dhan iyo adduunka sawirkiisa ay ka khaldeen axmed howlgallada badankoodu waxa ay ka socdaan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle marka maxay tahay sababta deegaanadaas xoogga loo saarayo waad mahadsan tahay Soomaaliya qaabka ay bulshada u dhisan tahay ayaa wuxuu yahay qaab qabaaylaha marka dagaalkan wuxuu ku bilowday qaab qabiileed oo hiiraan gobolka la yiraahdo ayuu ka bilowday qabaayilka Soomaaliyeed oo dhulkaas degan saad la socoto waa ka organize garaysan ama waa ka nidaamsan yihiin qabiilada kale koonfurta oo dego beeraley badan ay ku badan tahay dad magaalooyin degan marka in laga faa'iideysto fursadda maxaa la yidhahdaa dadka qabaayilka naftooda ah ayay dowladdu aragtay inay bilowga isdabaraacinta ama bilowga soo afjaridda maxaa la yidhahdaa argagixisada al-shabaab ee Soomaaliya dhibaatada weyn ku haysa adduunkan kale dhibaato weyn ugu geysta Soomaaliya gudaheeda in halkaas laga bilaabo marka waxaa isleeyahay dabeecada qabaayilka taas oo qodob midda kalena juqraafi ahaan iyo markii loo fiiriyo tareen ahaan dhulkaasi waa ka sahlan yahay dhulka koonfurta oo dhul badan oo hawda ay ku jiraan iyo meelo badan oo lagu gabado dhulka oo iska furan marka dowladda u sahlanaanaysa qabaayilkuba ay nimankaas si sahlan u baacsadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaasanaya shacabku waxa ay in dhawaalaba guulo la taaban karo ka soo hoynayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab marka maxay guulahaas uga dhigan yihiin dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah horta guusha ugu dambeysa waa nimankaas oo dhulka laga saaro oo xasilinna laga sameeyo dadkiina ummadii ay khaldeen oo maskaxda ku ciyaaraan ama ciyaalkii ay xagjir ka dhigeen iyo dadkii shacabka ahaana meesha nolol loo sameeyo iskooladii loo furo marka weli guul ma soo dhawaa waa wada dheer laakiin guusha fiskalka ama guusha ciidan waxay imanaya hadda saa la socoto wejigii kooba dhammaystirka wejiga koobaad qaybtan hadda socota waxoogaa waxaa ku yimid turoturo yar ayaa ku timid saad la socoto oo qaabkii dagaalka ugu bilaabay maxaa la yidhahdaa istiraatiijiyadii hadda waa la bedelay istiraatiijiyo cusub ayaa la qaatay oo ah in macawisleyda iyo qabaalka ay qayb ka noqdaan ciidamada dowladda madaxweynuhu wuxuu joogay maxaas maanta aadan yagaalu aaday kadibna si la rajeynayay inuu galmudug ku laabto oo dagaal loo dhan yahay oo qabiilada iyo ciidanka oo iskarabsiinayaan oo nimanka looga saarayo dhammaan qaybaha kaga harsan yihiin labadaas maamul goboleed ayay ballantu tahay marka weli waxaan isleeyahay waa dabaaldeg hore in hadda layahay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnaa furumaha dagaalka ee deegaanada galmudug iyo hirshabeelle marka maxay tahay muhiimadda joogitaanka madaxweynaha ee furumaha dagaalka maxaadse isleedahay joogitaankiisu uu ku beerinayaa niyadda ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab soo la socoto dhaqanka Soomaalida ayaa waxa weeyaan madax meel ka sareeyo la salaaxan jirta ayuu tiraahdaa aragtida dowladnimada Soomaalida ka aaminsan tahayna qaabka casriga ah hadda oo dowladuhu u dhaqmaan institution iyo wasaaradda difaaca iyo wasaaradda qaabka u dhisan maahan madaxweynaha Soomaalidu ay fiirsadaan oo sida shinnadii oo kale marka madaxweynuhu inuu tago dhulkaas oo maxaa la yidhaahdaa dadka uu dagaalka ku buuriyo ku dhiirigeliyo asaga naftiisa asagoo nin weyn oo oday ah oo maaragtay daa inuu intuu maxaa la yidhaahdaa dowladdii iyo hawlihii magaalada dishay iyo uu ka tago halkaas aad waxay ka dhigan tahay
say dhab uga tahay dagaalkani maadaama madaxweynihii hadda dhegeysanaysa shir khudbadiisa asagii lahaa maalin kasta waa lagu dilaya ayaa laygu cabsi geliyaa marka taa waxay ku tusaysaa in ay dhab ka tahay in uu niyad wanaag badan madaxweynuhu hayo inuu diyaar yahay inuu nimankaas maaragtay uu dalka dhaafiyo cirib tiro maxaa yeelay dowladnimada Soomaaliya dhan ayaa waxay ku xiran tahay saad socoto in nimanka laga takhaluso haddii qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo culimo adduunku waxa ay muujiyeen taageerada ay u hayaan dagaalka iyo howlgallada ka dhanka al-shabaab marka nooga waran muhiimadda ay arrintaasi leedahay shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan meel kasta uu joogo oo gaar ahaan dadka waxgaradka ay ku jiraan waxay isku raacsan yihiin arrintan inay tahay arrin laga maarmaan ah madaxweynaha lagu garabsiiyo dowladda in lagu garabsiiyo ayadoo ay saasay jirto oo niyaddii madaxweynaha iyo dowladda ka taageersan yihiin haddana dhalinyaro waxaa soo laaban karta dhinaca abaabulka ah gaar ahaan dowladda inay kooban tahay laakiin shaki kuma jiro in shacabka Soomaaliyeed waxgaradkiisa qaybihiisa kala duwan oo culimadu hormuud u yihiin maadaama nimankan ay magaca diinta soo hogadeen kusoo gabadeen ay diyaar u yihiin ayna u taagan yihiin saxaafadeed marka soo saaraan in nimanka ay waajib tahay in la dowrgooyo marka waxaa ka shakiyin in taageero weyn oo shacab uu madaxweynaha iyo dowladda ay haysto dagaalanka argagixisada marka maxaad ku tilmaami kartaa kaalinta saaxiibada caalamiga ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka qaadan karaan dagaalka lagula jiro al-shabaab si loogu guuleysto in guud ahaanba al-shabaab laga sifeeyo dalka Soomaaliya saaxiibada caalamiga ah waa ayaga qaybo kala ah nidaam oo meel dhexe isugu yimaadaan oo ay ka abaabulaan inaysan lahayn ayay u muuqataa laakiin labada dowladeed oo hadda maanta badan maxaa la yidhahdaa isheeg barnaamijkan Soomaalidu ay uga hayso ama dowladda aad u taageero waa dowladda Mareykanka iyo dowladda Turkiga oo labaduba leh taageero dhinaca cirka ah oo dagaalka toos ugu jira taageero oo dhinaca sirdoonka toos ugu jira kuwa kalena hadda kolley waa qayb ayay ka yihiin waa ka shaqeeyaan laakiin hadda anigu waxaan isleeyahay muddo badan beesha caalamka saaxiibada caalamiga Soomaaliya ay soo taageerayeen oo lacago badan ay ku bixinayaan tababaro marka maalintii ugu fiicneyd ee awoodda ugu badan ay soo geyn lahayn inay dowladda ay taageeri lahayn maanta ayaa la joogaa marka ayaga naftooda inay ay boorka iska jafaan oo ay maxaa la yidhaahdaa dowladda taageeraan gaar ahaan ciidanka iyo maxaa la yidhaahdaa isheeg propagandada ka dhanka argagixisada iyo howlaha shaqo fiican ay ka qabtaan ugu dambeyn Axmed adigoo ka faa'iideysanaya fursaddan maxay tahay fariinta aad u dirayso guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah si guul buuxda looga gaaro dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab fariintan anigu aan halka kala wadaagay shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga iyo qof kasta oo arrintan aragti dheer kale oo fahmi kara dagaalkan oo dagaal maxaa la yidhaahdaa badbaadada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa wixii siyaasadaha iyo wixii dhaliilaha oo madaxweynaha iyo dowladda hadda jirta loo qaba in gadaal loo dhigto oo waxaa la yidhaahdaa gadaal waranka kaga wada taagan iyo gantaalada gadaal naga wada xiran oo cabsida waxa weeyaan isheeg dilka iyo qaraxa iyo fikirkii qofku uusan xor ahayn ganacsigii oo la gudoominayo dadkii oo maxaa la cabsi gelinayo diintii oo la fool xumaynayo in dhinac looga soo wada jeedsado nimankaana la israaciyo kadib markii dalku uu dal noo noqdo oo dagaalka laga soo jeedsado kadib markii wixii isla xisaabtan siyaasadeedaha iyo wixii dhaliilaha ay timaado laakiin hadda waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo ninkii maalqabeen ahana maalkiisa inuu qayb kaga qaato ninkii aqoon-yahanana aqoontiisa ninkii qalmaal ah inuu qarankiisa kaga qayb qaato ninkii oo culimnimadiisa iyo diintiisa inuu fatwadiisa inuu kaga qayb qaato ninkii mas-uulahana mas-uuliyadiisa iyo la maqlay inuu kaga qayb qaato ninkii xoolo leeyahan xoolihiisa maaragtay wuxuu ciidamadaas ku taageeri lahaa inuu kaga qayb qaato marka waxaan qabaa in ay tahay maanta maalin aan loo kala harin aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa Axmed Cabdi Haadi agaasimaha Somali Civic House waxaana uu wareysigiisa ugu dambeeyay qaybtii 23aad ee barnaamijkeena hayaan tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo